gabadhu ikhtiyaar ma leh in ninka rabtiyo iska guursan karto. war diinta islaamka wax qasaba ma jiro. ilaahay subxaana wataala wuxuu yidhi suuradda labaad aayadda 256 laa ikraha fi ddiin, yacni diinta qof laguma qasbi karo, wax qasabana ma jiro. xadiiskan ayaa wuxuu caddaynayaa in dumarka aan la qasbi karin oo guurka aan lagu qasbi karin. bergolow nin cilmaaniyana waa tahay, muuqaaladaadana waa iga hor imaadeen. ummadda beenta aad ku faafinaysa ka dhaaf, dadkan ku daba raacsan oo beenta aad ku fogeynaysidna jooji. xadiiskan ayaa wuxuu caddaynayaa in dumarka go-aan ay leeyihiin. gabar baa aabbaheed wuxuu ku qasbay nin, way imaaday guriga nabiga caleyhi salaatu wasalaam bay imaaday, nebigu wuu maqnaa. cayisha waxay ku dhahday joog ilaa nebigu uu ka imaanayo. nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu imaaday ayagu waxay weydiisay, waxay dhahday aabahii baa nin ii guuriyey si qabiilkiisu kor ugu qaado, xor ma ahay, go-aan ma leeyahay? nebigu wuxuu yihi xor waa tahay, go-aan waa leedahay. xadiis kaleo isagana waxaa jiro oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam haweeney baa usoo dacwatay, waxay dhahday nin foolxun baa lii guuriyey. ninkii nabiga caleyhi salatu wasalam wuxuu amray inuu gabadha furo. marka wax qasaba diinta islaamku ma jirto. marka ummadda beenta ka daa, waxa dadka qasbayo oo dhahayo habaar dooro ama duco dooro, waxaan waa dhaqan Soomaaliyeed. weliba gabadha guurka soo marta lama qasbi karo. midda kale gabadha aabaheed tal wuu ku leeyahay, waxbuu u sheegi karaa, tal wuu siin karaa. dee waa aabaheed, hadduu tala sii maxaa diidaya? aabaheed xumaan lama rabo, nin unbaa nin fahmi karo. marka nin markuu kusoo doonto inuu guriga imaado aabbaha uu kaa fiiriyo waa wax fiican. sababtay taa aabbaha qof weyn waa, qof la siri kara ma aha. marka aabbaha inuu kaa fiiriyo qofka aad guursanaysid ama qofka aad rabto, maxaa dhiba ku jira? marka intaas maa kusoo koobaya. billahi tawfiiq.